النبي عليه الصلاة والسلام وحوري يهود با دغالميسا iyo muslimiin baa leeyay xageen lagu dagaalamaya nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa waadiga urdun lagu dagaalami doono waliba nusuusta qaarkeed waxay tilmaamaysaa bariga galbeed in la kala fadhiyo doono oo bariga inay joogi doonto qolana ay galbeed fadhiyo doonto inta halka isku dishaan baa nabigu wuxuu leeyahay عليه الصلاة والسلام yuhuud la jabin doona marka la jabiyaaba waliba dhirtu iyo dhagax iyo cid waliba ka warrami doonta geed mooyaane geedka shajaratu qarqadka la yiraahdo mooyaane inta kale oo dhamay sheegi doona idan tanawa bushaara labaad oo nabigu noo sheegay عليه الصلاة والسلام quraanku wuxuu sheegay wacdu naasira markuu iman doono marka labaad la baabiinayo reer banu Israa'iil in ilaahay soo ururin doono jiina bikum latifa ba ilaahay marka hore wax la yiraahdo qatacnaahu umama kooxaha la ka dhigay Israa'iil meel kasta way joogaan dunida alla ku kala daray uma bay noqday laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wacdu naasira markuu imanay maxaa la yiri jiina bikum latifa waana ilaahay ballan qaaday weerartu muudana hore loo yiri nusuusta sunnaduna way sheegaysaa inay jabi doonaan maka kama qabno Israa'iil inay jabi doonto iyadoo waxba halkan in badan ka talaabin Maraykan inuu jabi doono waa xaqiiqo jirta waayo Raashiya jabay oo ka xoog badnaa xidhi taariikhda bini'aadamka ma isii oo darasay Raashiya qaban sar ku baabi'i doonta laakiin waxay leenahay waxaan oo dhamay waxay sheegayaan mustaqbal inuu soo socdo waxaynu taariikhdu ma la darasay taariikhda waxa dib ugu noqotaana ilaahay baa quraanka wuxuu ku yiri إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إلهي فرعون بقوى الرموح اللي يريدون قوقو كبر كفرعون مركي الله الشيء وحا ليري سببتنا وحا يعيد يستضعف طائفة دك وحو كدغ الشيعة با ليري كوحو مسلم قادو مسلم نقولنا هذا ما شبه لكن وحي قال نقضي الصومالي الصومالي لاندي يوم حي يمن iyo Saudi iyo Masari iyo Turki iyo Afghanistan iyo Pakistan baa laga dhigay kooxa laga dhigay waa falsafadii Fircoon divide and rule Ingiriis kama iman waa ancient philosophers ki waxay rumaysanayeen waa wuxuu rumaysnaa Fircoon dadka xukumayay waa divide and rule nin kasta raba inuu dadka dulmiyana halka uu ka bilaabo waxa weeyaan shacabka inaad qaybiso waa shacabka hadduu isku wada jiro dema dulmi kartid oo ku tuuraya هذا الدكتاتور مال فردية هذا الظلم واضح وحنا suurtageliyay dadkan uma isku xidhnay haday dadku mid yihiin ظالم bama xukumi karo ولذلك baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya fircoon jacalaha ummadii buu ka dhigay maxay shiic kooxo markii laga dhigay inta muxuu sameeyay yastadcifu taa'ifatan minhum baladi koox mula baxay marka maalin barneer baa la tubaatay ilaa dad wada tuntaa lagu tumayaa yastadcifu taa'ifatan minhum baladi